هلا السلام عليكم أصحابتا janalkeyga ku xiran asxaabteyda see tihiin soo ma fiicnaydeen see ku barideen see ku hergasheen asxaabta meel kasta dunida ka joogtaan waa idin salaamayaa salaan qaaliya oo idin soo marinayaa asxaabta soo dhawaada maanta waxaa rabay inaan ka sheekeyno walaalkeena Sharma Boy ayaa hees cusub soo duubay muxuu u soo qaaday madaxweynaha Soomaaliya madaxweynaheena mudane Xasan Sheekh uu soo qaaday rabaa inaan idinka dabageeyo iyo maxaa lahaay heestan hadda heesiis oo heest ugu horeysa dadku karbaashayo dadka maxaa lahaay madaxda ah miyaa mise hees oo wiilkan hore uu soo heesi jiray waxyaalahaas rabay inaan dul maro. I feel like sometimes people misunderstand Sharma Boy, so I wanted to make things clear, you know, and his point of view in arko. I like in dadka maxaa lahaay point of view gooda aan fiiriyo meesha ka imaanayaan ise u hadlayaan ma fahanti. maxaa lahaay Sharma Boy waa wiil dhalinyarada dhan Soomaalida ay jeclan yihiin maxaa lahaay wiil very highly public figure waa in the youth in our community ma fahanti. So maxaa lahaay and everything he says maxaa lahaay heesiisa wuxuu kusoo gudbiyaa erayadiisa wuxuu kusoo gudbiyaa heesaa halaasa isla dulmareena asxaabta marka soo dhawaada. I hope this speaker does justice for my words because waa ka daalaa sometimes inaan u haayo and I'm just battling with this speaker ma fahanteen iyo dulqaata baryahan speakerkiiya dagaal isku heynaa asxaabta. wiilkan Sharma Boy I don't know in xasuustaan in kale markuu Muqdisho joogay asagoo yar dhowr jeer ayuu heeso soo qaaday uu maxaa lahaay ku kashbaashayo dadka madaxda ah markaas hees uu soo qaadayo heestan wuxuu soo qaaday dhalinta shaqo male haloo yeelo sifiican heesaha ma u qaadin anaga isaas maana la shuufo hadda idin sii deynaa heestaas dhageysta xasuustiina soo kiciso laakiin maxaa lahaay markaas I think farmaajo madaxweyne ka ahaa ee Soomaaliya is not the maxaa lahaay asaga inuu qabiil ahaan qabiilista ma ahan wiilkaas mainly that's why waxaa rabaa inaan dhaho he's not qabiiliste. He just likes maxaa lahaay inuu u hadlo the youth in our community. Sometimes waxaa moodaa dadka maxaa lahaay wadamadeena famouska inay cabsanayaan ma fahantay oo maxaa lahaay ay hadlaan maxaa lahaay in la qarxiyo ama la dilo ay ka cabsanayaan. waa ogna dhibaatooyin badan ku wada dhacay dadkeena maxaa lahaay public figureska oo dowladeena soo faragashto wax la qarqarinayo malaas. We all know that qofka Soomaaliga muwaadinka Soomaaliyeed markuu ka hadlo damco inuu ka hadlo wadanka dhibaatooyin ka jiro dil baa loo geystaa. aniga kula hadlaa markaa yaraa dhibaato aad u xun soo qabsatay dhibaato ilaa imatay it's not in my family but anigoo yar kismaayo maxaa lahaay nin hooyaday ma ogin xasuustay in kale sheekada maanta hadii hooyaday video dhageysata she's gonna be shocked. aniga waan yaraa I think I was about 5 or 6 nin dhaqtar ah magaaladeena Farjano oo deganaa maxaa lahaay dhaqtarka magaciisa ina xasuustin kale ma ogi Jamaal ma lahaay miya ma ogi ba maxaa lahaay Ismaaciil ugu asaasan gareeyay aan markaa maqla sheekooyinka laga sheekeenay I was really sad and I was scared fan. Soomaalida badanaa waa lagu yaqaanaa inay iska dilaan qofka mu'aadamka dadka ummadda wax u taro maxaa lahaay hobbiska ummadda soo jeediyo oo ummadda daaweeyo adduunka lagu sheego qof oo maxaa lahaay journalistkiisa dilaayo qof dilaayo qofka activistiga ah oo maxaa lahaay wanaaga ummadda rabo sida Cilmaan oo kale Cilmaan iyo gabadhiisa oo kale loo dilo oo kale. Those kind of people are the people that you need to keep in your life. mafahant dagaalada aad bay u fahansan yihiin laakiin maxaa lahaay waxaa moodaa ummadda Soomaaliyeed inay is fahansaneen qofka mu'aadamka activistiga journalistiga iyo dhaqtarka ah in adduunyada meel kasta border to border oo free u yahay. xataa company waxaa jiro maxaa lahaay sida Red Cross oo kale Doctors Without Borders oo kale dhaqtariintaas meel kasta ay aadi karaan adduunyada they don't even have borders. mafahant haddii maanta dagaal meel ka socdo xataa ay tagaan geeska waa loo furiyaa. So imagine those kind of people adduunyadaas lagu qadariyo haddaa idinka iska dishaan. So
Shekara sada mehe, let me go back to the story. All I'm saying, I hope nothing bad happens to Shamra Boy. He's my favorite singer. God forbid, subhanallah. But what I'm saying is he's not scared. Ma absana ila umbuka absada because asago muqdisho joogo very young age video waadi si deynaya oo qaso ka hadlaya dhalinyarada dhibaatada lagu hayo at that time asago yar ma fahantay video ata fiirsanayna danku shaqo male halo yeelo dhalitu shiide maana la shuufo jeebku shilin male halo buuxsho shahaadadu macna male ha shaqayso nin walba ninkii anoolaysto nabada kuma jidhe naga daaya Soomaaliyo dhan anoolaato waxaanay hal nooc calankeena hal nooc cawaala nuur hanoo dhaxeeyo nin walba ninkii anoolaysto nabada kuma jidhe naga daaya Soomaaliyo dhan anoolaato waxaanay hal nooc calankeena hal nooc cawaala nuur hanoo dhaxeeyo wuxuu leeyahay dhalinta shaqo male haloo yeelo dhalinta shiide maana la shuufo wuxuu dhahayaa maxaa leeyahay qof wal qofkiisa shaqo geyso. Let me repeat it. Oh my god, I don't even know the song. Okay, jeebka shilin male haloo buuxsho. Okay, shahaadada macna malehe ha shaqayso. Okay, nin walba ninkiisa ha noolaysto nabada kuma jidhe naga daaya Soomaaliya oo dhan ha noolaato. Okay, waxaan nahay hal naf calankeena hal nooc. Okay, cawaala nuur hanoo dhaxeeyo cawaala nuur hanoo dhaxeeyo nin walbo ninkaaga noolaysto buuga kuma jidhe naga daaya. So this song was also called just to remind you guys where Sharma Boy came from and how activist he was at young age. Ma fahanti dhalinyaradu u hadli jiray. That's why dhalinyarada aad iyo aad u jecel yihiin waxyaalaha reality day by day dhaco u ka hadlaa. So let's go back to what happened today. Maxaa bishaan ku jirno waxaa heshiis saxiixay madaxweynaheena mudane xasan sheekh iyo ra'iisul wasaarihii Ethiopia Abiy Ahmed. waa ogeen marka AI generated pictures laga soo sameeyay Sharma Boy inuu ogeey kalma ogi. I will show you the picture. Madaxweynaha Abiy Ahmed shuminay ya laga soo sameeyay. So I think that got him or the propaganda of the whole story. But heshiis kan it could be good for Somalia, it could be bad for Somalia. But dhalinyarada aniga xataa Sharma Boy kamid ah dhalinyarada kale maadaama aan ka weynay Sharma waxaa rabaa inaan u sheego nothing is set in stone. maxaa markuu madaxweynuhu heshiis saxiixo inta xataa everyday heshiis xun iyo heshiis saxanba inta way saxiixaan wadanka ku nool Mareykan. Laakiin madaxweynaha dambe imaani doono hadduu heshiiskaas ka heli waayo asagaa kansali karo wuxuu dhihi karaa okay heshiiskan kama helan wadankeyga wax uma taraayo marka waa la kasali karaa. Nothing set in stone. wadanka waa la ogyahay Soomaaliya inay leedahay wadankeena lagama qaadanayo ma fahanti. So every country na madaxweyne nooc kala soo maro madaxweyne fiican soo maro madaxweyne xun soo maro madaxweyne dadaal marka qof kasta suu yahay Allah waclam. aniga waxaan dhihi lahaa ummadda Soomaaliyeed ha jeclaadaan dowladnimada ha jeclaadaan wanaaga madaxweyne kasta wadanka soo marana xishmeeno. I know Sharma Boy he doesn't hate Somaliyeed. It's just that he wants the best for the Somali youth and Somali ilmaheena dhalinyarada ku dhalan doona ma fahantay. Asagana aabo waa caruur Soomaaliyeed uu leeyahay maasha Allah laba caruur uu leeyahay la u daa caruurtiisa anagana caruurteena Allah noo daayo kuwa wadankooda bashbash barwaaq farxad ku qaato Allah naga dhigo kuwa ogaado aqli yeesho wadankeena gaal iyo muslim dhibaato oo nacab ay joogaan oo dhibaato nagu hayaan kuwa ogaado Allah naga dhigo madaxweynaha Xasan Sheekh iyo madaxweynaha ka dambe Soomaaliya imaan doon iyo kuwa ku sii xeegabo Ilaahay ha wanaajiyo ummadda Soomaaliyeed insha Allah kuwa ummadda isku keeno walaalo ka dhigo qabyaalada ka najixiyo argagixisada ka badbaadiyo wadanka Allah ka dhigo insha Allah.
sharma waxaan dhihi lahaa sharma heestaan hadda waa kaa qaadnay waa aragnay heesta waa idiin sii deynaa iyadana little bit iyo dhegeysta maxaa lahaa after that song maxaa lahaa video waa soo gabagabeynaya insha allah waatana heesta uu xasan sheekh u qaaday asagaa ku heesahay waa idin daaraa isku dhegeysta sharma boy ha isboojeerna annaga ma hadli karna xamar joognaayo noo hadal adaa Ameerika joogay ani baa ma hadlay waa heesaanayo heesta ma sugila adiin ma idin sii hadlaa هاي بس وإذن هذا مركب حسن بيق ودن كسا أقبصت وحان كبيحل أنا يباه يخيخ بدي دميت وحاسيست بسكت ديخ هورت أدياك ودا وحاتها إن الشيخ حسن بيق محلا ولي مصوف سعينا أماليا يعني وكل ولي ما أركن محلها يوحان إلها sharma halas kuke I know you're an activist you like wax community ka dhaco laakiin madaxda maxallaha halas ugu hara intii madaxweyne kala noo imaana insha Allah xasan sheekh sanada haray I wish sanadkiisa inuu dhameysto xaaladda Jubbaland ka jirtana ilaahay hadajiyo ma fahantay لكن we need those kind of people that are not afraid to speak their mind waxyaalaha wadankeena ka dhaco ka hadlo sharma boy waxaan dhihi lahaa masha Allah you are a brave man walaalo ku salaamaya insha Allah ilaahay noo ka adaayo and I really hope this deal of Somali loo xiray iyo Ethiopia xirteen it's a good deal and everybody sticks to what they said they would do and their promise ma fahantay so the two countries have mutual beneficial ma fahantay maxallaha ayay si labada dhinacba deeqli fiican ay soo galaan wadamadooda kala dhistaan maxallaha ay heshiiyaan laakiin Soomaaliya waxaan dhihi lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed iyo madaxda Soomaaliyeed ilgoon wadankiina u lahaada ma fahanteen halaasa ugu tagi lahaa maxallaha hada videoda ka heshay fadlan waxaan ka codsanayaa inaad subscribe iyo startid like and share insha Allah salaami asxaabtayda qaaliga khayr aan idin rajeynayaa ilaahay dartiisa idin jecelahay inta video sita ku kulmayno waxaan idin rajeynayaa bash khayr iyo bareero malaha idin rajeynayaa assalaamu calaykum bye هلو يلو اللي تشيده ما أنا أشوفه جاب كل الملح هلو بوشو شادد معنا مله عشق يسو نيم والبنكي أنا ولستو نبضكم مجدين قدايا